waxaan jeclaan lahaa stage-kan in laga dego fadlan okay please hal isxushmeeyo barnaamijkan inta aragtaa la idin soo waday samatar bateriga jooji aad waa maasantahay ciyaalka meesha ma laga wada ciyaalka qariib waxaan codsan lahaa in meeshan laga dego adinku maasan waayaga barnaamijkii ayaa waqtiga ayaa in haya meeshan muddo badan baad joogteen waxaan jeclaan lahaa mar kale inaad jidkii banaysaan adinku maasan si aan isula xiriirno ninka halkaa taagan aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa haatan inaan ku soo dhaweeyo mikrofonka waxaad la socotiin in badan aan ka hadalnay inay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degani ay ka qayb qaataan siyaasadda waddanka Mareykanka qof kasta oo Soomaali ah ee jecel arrintaasna aan ku caawino si uu mustaqbalka guul kaga keeno taasi waxay dan ugu jirtaa carruurteena iyo annagaba si waddankan aan nolol laga helno uguna noolaano waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo Sadiiq Warfaa Sadiiq wuxuu u ordayaa aqalka gobolkan waxa uuna ka ordayaa xaafadan Sadiiq Sadow السلام عليكم وعن آدي آد وقم هذا علنا يا دتك برنامج كان سوق قبنقابيي سنة جوردي كونتونات يكسو وريكتي مركان برنامج كيلني ودمada إنجليزكا يتليانيكا June 26 1960 and August 1st 1960 أنا waxaa la yiraahdaa magacayga Saadiq Xirsi Warfaa waxaana hay musharax u sharaxan districtiga 61A وحافظان كارميل إلا أي مولك 24 كا
xaafadda Soomaalidu u badan tahay waxaan halkaan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan halkaan uga soo qayb gasheen marka mar labaad waxaan halkaan uga mahadcelinayaa dadkii meeshaan soo qaban qaabiyey waxaana ogtihiin 8 maalmood kadib inaan u celebrate gareyn doono 234 tii ka soo wareegtay markii xornimada waddanka Mareykanka aan ka qaadanay waddanka Ingiriiska 1776 July 4 marka anigu waxaan ahay musharax magacaygu waxaa la yiraahdaa Saadiq Xirsi Warfaa waxaan u sharaxanahay district 61A waa mahadsantiin thank you ورسويلك أنا اللي يرانا ما دورنا ورسويلك ما دورنا وده دورته ما سوعلي هي waxaan kilmaamay waxa jira primary-ga waxa weeye August 10keeda 2010 marka aad iyo aad ayaa waxa dhiiri gelisay meesha inta tirar ku dhantihiin xaafadan waa research gareeyay annaga ayaa u badan waana weyn gareyn karnaa waa mahadsantiin warwiilka hana doorto sama doorano waa hagaagaba u mahadsantahay waxaan haatan hortiina keenayaa cabdicasiis muuse maxay waa ninka Soomaaliyeed ee u guntaday inuu badbaadiyo caruurta Soomaaliyeed ee dhibaatada iyo dagaaladu ay afeeyeen taageera soona dhaweeya cabdicasiis muuse maxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوماليا 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 thank you ومحسنتين مستوستاغين إنهم خطبة درجيديو ومحسنتين ما أنت مالك فرحات بدل إنها أنت جوجا وملاين مايو صومالي مر هنولاتو هاي سراعدو ولجدد هذا عنوستاغ وحيتها إنهم بدبادين كرنو الله وقفوا الصومالي عنو اسكو دقن وأباهن إنا عاوسين $4,000 $200,000 على ديارة سوق علينا واتاسا لو علو اسكو دغان واي فيزا waa haysanaa isbitaalka meey kliniga aan ogolaaday miscaawin karnaa ilmahan qof kasto halkan ka tago waxaan ka codsanaa in saaxiibkiisii asagoo $50 ku dooneed gareeyo haddii aan helo 200,000 caawo biritool anaa soo qaadaa diyaarad ee u baahana ma raaci karaan diyaarad commercial ma raaci karaan waxay ku biriid gareeyaan respiratory naqas ma qaadan karaan adiga xataa qofkan caadiga caafimaadka qaba ma soo raaci markuu soo raaco diyaaradda wuu ku dhibtoonayaa masuurku waa kaasa cid alle cid caawa wax ku dooneed gareyn kartaa ku dooneed gareyso buuggaana qofkii gato caawa wuxuu support gareynayaa ilmahaas ilaa waxaan ka baryaa meeshaad ka bixisa inaad inoo kheyrkan isku bedelo mis caawin karnaa mar labaad ilmahan masaakiinta waxay sugayaan waxa waa adigay ku sugayaan Soomaali waa iscaawin kartaan buugga $2 waaye qofkii $50 isku qarana magaciisa ha qoro hataga buudan xaq ku leenahay 4,000 qofood ma ka walaanaha Minnesota 4,000 qofood oo min $50 ayaa ilmahaas keento waa $200,000 keento diyaarad medical equipment lahan u jaareynaa macaawin karnaa ilmahan dar alla mu caawin karnaa inaad caawa mesajkaas qaata dadka deriskiina u taga xaafadaha u taga guryaha la garaaco waxay idinka codsanaa inay u support garaysaa ilmahaas dhibaataysan aqoon uma lihi waxay joogaan Nairobi waan u tagnay anigii dhakhtarka qali lahay ayaan u tagnay waan nala soo diiday ma raaci karaan commercial airline 7,000 qofood aan ku deganahay Minnesota 4,000 qofood oo xaq ilaahay dartiis u caawisan aan ka laana ilmahan marka waxaan idinka codsanayaa waxaana laga helaa karameel waxaad geyn kartaa masaajidka Abubakar Sadiiq waxaad geyn kartaa masaajidka 24ka aad u sheegtiin ilmaha sadaqadooda waa tiraahdiin karameel waxa u dhiibi kartiin oo joogo dahabshiila joogo roobla joogo caabi ciisa la qori heestaan naga laayay bal hala guntado oo jaabka hala furo ya ina adinka meeshaan faranjiyeerka cuntada kala soo baxdaan ilmihiina ay baahi meesha ugu dhintaan waxna qabtamaan marka arintan hala u guntado gacanaha loo geysto maanta waxaad moodaa waa xilligii fishinka siyaasiyiinta ee waddanka Mareykanka xilligan oo kale codkiina ay jecel yihiin inay helaan marka waxaan ka codsanaynaa inaad doorataan ninkii ummadan wax u qabanaya Mark Stanzabal waxa uu noo sheegi doonaa waxa uu u qabanayo dadka Soomaaliyeed waxa uu ordayaa governor gobolka Minnesota Mark Stanzabal soo